Xiddiga weerarka uga ciyaara kooxda Chelsea ee Cole Palmer ayaa wacdaro ka dhigay kulankii Everton. Palmer ayaa kooxdiisa ku hogaamiyay guul weyn oo 6-0 ah kulankan ka dhacay Stamford Bridge kana tirsan Premier League. Xiddiga reer England ayaa dhaliyay 4 gool kulanka isaga oo 2 rikoodh gool u beddelay 2 gool oo kalena caadi u dhaliyay. Cole Palmer waa ciyaaryahankii ugu horreeyay ee Chelsea 4 gool ka dhaliyay hal kulan oo Premier League ah tan iyo Frank Lampard sanadkii 2010. Waqtigaas Lampard ayaa 4 gool ka dhaliyay kooxda Aston Villa markii Wolves ay 7-1 ku xasuuqday kulan ka dhacay Stamford Bridge. Tababaraha kooxda Arsenal Mikel Arteta ayaa sheegay sababta ay Arsenal uga hadhay tartanka Premier League. Arsenal ayaa haatan ku jirta kaalinta labaad iyagoo kaalinta koowaad u lumiyay kooxda Man City. Arteta ayaa sheegay in sabab la xiriirta kulamo badan ee ay ciyaartay kooxdaasu ay sabab u tahay in ay lumiso hoggaanka Premier League. Ma garanayo, laakiin marka aad eegto jadwalka ciyaaraha ay tahay inaan ciyaarno 3 maalmoodba mar. Waa wali. Mikel Arteta ayaa ku calaacalay shirkiisii jaraa'id ee ciyaartii kadib. Tiro ka mid ah ciyaartoyda Manchester United ayaa dib u dhigay go'aamada mustaqbalkooda sababtoo ah hubanti la'aanta ku saabsan in Erik ten Hag uu kooxda sii joogi doono xilli ciyaareedka soo socda. Sida ay sheegeen wararku, cadaadiska ayaa mar kale ku badanaya tababaraha Man United kadib barbarihii ay kooxdiisu la gashay Bournemouth kulan ka tirsan horyaalka Premier League. Man United wuxuu heshiiskoodu dhacayaa 7 ka mid ah kooxda koowaad xilli ay kooxdu ku jirto xilli ciyaareed niyad jab leh. Waxaa jira xiddigo lala xiriirinayo in ay iskaga tagaan kooxda, sida laga soo xigtay The Manchester Evening News. Qaar ka mid ah ciyaartoyda United ayaa sugaya waxa ku dhaca tababaraha reer Holland ka hor inta aysan go'aansan mustaqbalkooda. Natiijooyinka isbuucan waxay keentay in ay Man United 13 dhibcood ka hooseyso kooxda Aston Villa ee ku jirta kaalinta afraad, inkastoo ay kaalinta shanaad ka caawin karto inay u soo baxdo Champions League, laakiin waxay sidoo kale booska ka dambeeyaan 10 dhibcood. Saadaashii ugu dambeysay ee kooxda guuleysan doonta Premier League. Kaliya waxaa dhiman 6 kulan oo lagu go'aamin karo kooxda ku guuleysan doonta horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan. Ka hor bilowga toddobaadkan, Man City ayaa baacsanaysa kooxaha Arsenal iyo Liverpool iyadoo ganaaxay farqiga goolasha ku hogaaminaysay horyaalka Premier League. Si kastaba ha ahaatee, guushii 5-1 ahayd ee ay City ka gaadhay Luton ayaa ka caawisay inay hoggaanka u qabtaan horyaalka ka hor inta aanay Arsenal iyo Liverpool guuldarro kala kulmin kooxaha Crystal Palace iyo Aston Villa. Ka hor 6 kulan ee ugu horreeya horyaalka, Compete ayaa saadaaliyay kooxda ku guuleysan doonta horyaalka Premier League. Super Compete ayaa Man City u saadaaliyay in ay horyaalka ku qaado 1 dhibic xilli ciyaareedkan. Arsenal ayaa loo saadaaliyay kaalinta labaad oo ay ku gali doonto 85 dhibcood. Sidoo kale Liverpool ayaa loo saadaaliyay in ay 84 dhibcood ku gali doonto kaalinta saddexaad ee kala sarreynta.